لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك الله 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 طفت وسعيت الله 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 وشفت البيت طفت وسعيت الله الله من قلبي ناديت تايب على بابك الله 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 لبيك يا الله لبيك يا الله وشربنا من زمزم الله واحنا بنتنعم الله 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 طفت وسعيت الله 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 وشفت البيت طفت وسعيت الله الله من قلبي ناديت تايب على بابك الله الله لبيك يا الله لبيك يا الله وشربنا من زمزم الله واحنا بنتنعم وشربنا من زمزم واحنا وشربنا من زمزم واحنا بنتنعم ونصلي ونسلم على احمد نبينا الله الله لبيك يا الله 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 لبيك يا الله وفي الكعبة بكينا على التوبة نوينا وفي الكعبة بكينا على التوبة نوينا ومدينا ايدينا والدمع في عينينا الله الله لبيك يا الله لبيك يا الله وفي الروضة نجينا كبرنا ودعينا وفي الروضة نجينا كبرنا ودعينا يا ربي قوينا على كل عدينا يا لما دعتني جيت أزور البيت يا الله لبيت ودعيت وبكت يا ربي في رحابك يا الله وشفت البيت الله 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 طفت وسعيت الله 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 وشفت. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودروس تحناء وينو تلقلني حجك أحكام حجك إنه كذا هذا لنا سيأيوغا حق بيلان ذاتك مسلمين تاه يدون أي حجك إلهي إن يسوقتان iyo kuwa markaa niyada ay kaga jirto iyo kuwa doonaya inay bartaan ahkaamta xajka intaba maxaa yeelay qofka soo muslimihi uu u baahan yahay shayga ku waajibka ah inuu ogaado si ay ugu fududaato oo ugu sahlanaato marka uu waajibka gudanayo dadkana waxa dhacda in fara badan inaanay shayga waajibka ah baranin kuna dadaalin laakiin marka hawshaasi ay qabsato ayuunbay dabeedna ama uu ansixi waaya ama uu ka qaribmaya ama wax ka sii noqonaya
ama uu ku waalanayaa haddii la yidhaahdo maxaan yeelaa iyo maxaan yeelaa iyo maxaan yeelaa. sidaa darteed baa la doonayaa shay kastoo waajiba inaad taqaano adigoon gudagelinba. xajka sii baro adigoon tegin. waxaad sii barataa axkaamta guurka adigoon guursanba. waxaad sii barataa axkaamta salaada adoo caruuraba sii baro oonu kugu waajibinba, si hadhow ay kuugu fududaato kuugu sahlanaato. sekada sii baro adoon maalba yeelan. axkaamta macaamulada axkaamkeeda maaragtay dadku ay ku macaamiloonayaan sii baro, sida axkaamta markaa bayc oo kale. bayca sii baro adoon shaqadiiba gelin, si aad uga badbaado qishka, si aad uga badbaado ribada, si aad uga badbaado isweydaar oo dhan. laakiin markaad shaygii dhex gasho aad butuluqsato ee wax waliba dhanka doontaba aad u rido, hadhow maxaan yeelaa iyo maxaan yeelaa iyo maxaa sidana iga noqotay iyo sidana iga noqotay iyo kaa noqonin arrinku. haddaba axkaamta xajka ayaynu insha allahu tacaala haddii ilaahay raalli ka noqdo iyadoo taxano ah ayaynu soo gudbin doonaa. waana casharkii u horreeyey ee ka hadlayay axkaamta xajka. qaala allahu tacaala ina awala beytin wudica linnaasi laladii bibaka. waxaynu ka hadli doonaa waajibaadka xajka iyo inuu yahay shay ku waajiba qofka muslimka ah. ilahay baa wuxu uhi subxaanaه wa tacaala ina awala beytin wudica linnaasi laladii bibaka. gurigii u horreeyey ee dadka loo dhisay waa kaa maka ku yaalla. bibaka bimaka waa gurigaa maka ku yaalla wey. mubaarakan wahudan lilcaalamiina fiihi aayaat bayinaat maqaamu ibraahiima waman dakhalahu kaana aamina. waa bayd barakaysan, waxa uu yahay hanuun buu caalamiinta u yahay. aayaad cadcad ayaa ku yaalla. maqaamu ibraahim baa ku yaalla, walkii waxay uu ku soo degayey nabiga calayhi salaatu wasalaam laga soo diray, qur-aanku uu ku soo degaayey. meeshaa barakaysan weeyaan ee caalamiinta hanuunka u ah ee ay ku yaallaan aayaadka cadcad iyo maqaamu ibraahim. waman dakhalahu kaana aamina. qofka galaa waa aamin buu leeyahy rabbi subxana wa tacaala. aamin naftiisa iyo maalkiisaba waa aamin wey. sanad walba malaayiin muslimiinah oo ka yimid min kulli fajin camiiq ayaa iskugu imanaya. dabadeedna ammaan bay ku noolaanayaan inta ay joogaan, naftooda iyo maalkoodaba, iyagoo ku raaxaysanaya oo cibaadaysanaya, waajibka ilaahay gudanaya, oo cid la hadlaysa iyo cid xaag mooyaane, macnaha xaajiyo qof waliba uu salaamayo, qof waliba soo dhaweynaya mooyaane cid dhibaataynaysa aana jirin ayuu ku noqonayaa waddankiisii. halka haddii meel goob ay dhowr kun iskugu yimaadaan, intaasoo fawdii ka dhacaysa oo intaasoo shil ka dhacayaan oo intaasoo qof wax ku waxyooloobayaan, malaayiinkaasi waxa weeyaan halkaasi ku cibaadaysanayaan sanad walba. waman dakhalahu kaana aamina. qofka galaa waa aamin wey. walilaahi cala annaasi xiju lbeyt man istadaaca ilayhi sabiila. ilaahay subxana wa tacala wuxuu ku leeyahay dadka guriga ilaahay inay tagaan ciddii karaysa awood inay tagaan, waa waajib wey. ilaahay wuxuu ku leeyahay oo uu ku waajibiyey dadka muslimiinta ah inay gurigaa ilaahay tagaan ciddii karaysa awoodu leh. waman kafara fa ina allaha haniyun can alcaalamiin. qofka ka gaalooba ee diida ee yidhaha layguma hadleeyo, ilaahay caalamiinta oo dhan qani buu ka yahay. culimadu markay tacriifinayaan xajka, huwa qasdu maka, waa in maka loo qastiyo weeyaan. isagoo qofku muxuu qastiyayaa markaa inuu soo guto nusugaa iyo camalkaa xajka ee waajibka ah ee cibaadada ah ilaahay subxana wa tacaala loogu dhowaanayo, sida cibaadatu dawaaf wasacyu wawuquufu bicarafa wasaa'iru manaasik. inuu soo guto waajibkaa ilaahay ee xajka sida dawaafka, sacyiga, wuquufu carafa oo ah dee arkaantii uu ku taagnaa xajku, iyo manaasigta kale
isagoo ilaahay subxaanahu watacaala amarkiisa qaadanaya ilaahayna raallihaanshiisa doonaya isagoo ka jawaabaya amarka ilaahay subxana watacaala uu nagu amray walilaahi cala nnaasi xiju beyti man istadaaca ilayhi sabiila isagoo amarkaa gudanaya oo amarkaa iyo waajibkaa ilaahay qaadanaya raalli ahaansho ilaahayna doonaya camal kastoo wanaagsan oo aynu la imanayno raalli ahaansho ilaahay baynu doonayna waajibka ilahay markaynu gudanayno waxaan doonaya ilaahay inuu naga raalli noqdo ila isaga dartii baan camalka u gudanaynaa huwa axadu arkaanu islaam alkhamsa waxa uu ka mid yahay xajku arkaanta islaamka ee shanta ah ayuu ka mid yahay huwa fadl min faraa'id allatii culimat min addiini bidaruura wuxuu ka mid yahay camalada iyo cibaadooyinka aan qofka loogu cudurdaaraynin ma aqaano loogu cudurdaari maayo waa waajib daruuri ah inuu ogaado haddii uu qofku diido waajibnimada wuu ku gaaloobaya islaamkana wuu kaga baxaya waxay ka mid tahay arrimaha waajibka ah ila waa arkaanta islaamka ah hadduu qofku diido uu idhaa lagumale uu ku gaaloobaya salaadda hadduu diido ku gaaloobaya sakada hadduu diido ku gaaloobaya xajka hadduu diido ku gaaloobaya soonka hadduu diido ku gaaloobaya waa arkaantii sakada hadduu diido ku gaaloobaya uu dafiru idhaahdo maba jirtaba marka waa arrimaha aan la ogolayn inuu qofku ku safaado ilaa waa arkaanta islaamka ah sida culimmadu markaa ay doorteen jumhuur culamaa sanadkii 6aad bacda alhijra ayaa la waajibiyey ilaahi subxana wa tacala uu soo dejiyey waatimu alxaja waalcumrata lilah u dhammaystira xajka iyo cumrada ilaahay dartii u dhammaystira waajibkaa ilahay ku addoonsaday sidiisa ula kaalaya waxaa la doonayaa markaa qofka muslimka ah waajibkaa ilaahay subxana wa tacala uu ku addoonsaday inuu sideeda uu u guto oo uu la yimaado ayaa la doonaya oonu ku safaadin culimmadu markaa waxay tilmaamaan xajku ma marbaa mise waa uu soo noqnoqdaa xajku waxa weeyaan qofku inta uu nool yahay noloshiisa maratan waaxida culimmadu waxay isku waafaqsan yihiin calaa ana alxaj laa yatakarar inaanu xajku soo noqnoqonaynin wa annahu laa yajibu fi lcumr ilaa maratan waaxida qofku intuu nool yahay hal mar ayuunbaa uu ku waajibaya hal mar unbaa lagu leeyahay facan abi hurayrata qaala waxa uhi khadabanaa rasuulu llahi sala allahu alay slm rasuulka ilahay baa noo khudba akhriyey faqaala waxa uhi yaa ayuha annaas ina allaha kataba calaykum alxaj faxuj ilaahay wuxuu idinku waajibiyey xaji soo xaja faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi akullu caam yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow ma sanad walba miya fasakata wuu aamusay nebigu xataa qaalaha 3 ilaa uu 3 jeer ninkii ku celiyey uma qaala markaa wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam low qultu nacam lawajabat haddaan haa odhan lahaa way idinku waajibi lahayd walama stadactum manaadin karteen uma qaala waxau yidhi daruunii maa taraktukum war iga taga iska daaya wixii aan idinka tegay fainamaa ahlaka man kaana qablakum kasratu su'aali waxa baabiyo halaagay kuwii idinka horreeyey su-aashoodii badnayd wa ikhtilaafihim calaa ambiyaa'ihim iyo ambiyadoodii ay khilaafayeen faidaa amartukum bishayin haddaan shay idin amro fa'tuu minhu ma stadactum inta ad kartaan kala kaalaya faidaa nahaytukum can shayin haddaan shay idin diidana fadacuu iskaga taga rawahu albukhaariy wa muslim wuxuu leeyahay abaa hurayra nabigaa noo khudba akhriyay calayhi salaatu wasalaam dabeedna nebigu waxau yidhi yaa ayuha annaas ina allaha kataba calaykum alxaja faxuj ay farada calaykum alxaj ilahay wuxuu idinku faral yeelay xaje soo xajiya dabeedna nin baa waxa uu yidhi faqaala rajulun akullu caami yaa rasuula allah ninun baa yidhi rasuul allah ma sanad walbaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu iska aamusay su-aashaas isagoo diidan ayuu iska aamusay
saddex jeer buu ninka ku celiyay nabigana haddii saddex jeer su-aasha lagu celiyo uu ka jawaabi jiray ثم قال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت هدان نعم أوران لها أنت سكلي نعم وكلي هدان أوران لها ويدي كوا تجيب لها ولما استطعت مراد كرتين تسرنا ذول بهدي لي حج هو واجب من الكرلا لرسولك عليه الصلاة والسلام وأوجي هاي تدك مسلمين تاع أيوة جن حريصنا أيوة حان كرين وأوجي أو حان كريم بحتى كم كتشوجه أيام كريم بس أنا ذول بينو تجو هذا ما كتشوجه لوك بكو جاري maxaad u maleen dadka muslimiinta ah caalamka joogo la ilaa sanad walba soo xajiya suurtagal miyay noqon lahayd meeshu horta ma qaadi lahayd tawada nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yiri war waxaan idinka tago iskaga taga oo ha baarbaarina waxa halaagay ku idinka horeeyay su'aashoodii badnayd iyo marka loo cadeeyo ambiyadooda ay khilaafayeen shay bay ku qasbayaan oo ay oranayaan ka jawaab ay ku celcelinayaan marka loo cadeeyo ahkaamtii iyo siday tahayna iyo waajibkaana way ka dhaqaaqi jireen sidaas ay ku halaagsameen idinkuna su'aasha badan iska daayay فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم هذا شيء أمره واحد لك عليدان أنت أكرتان حس عد منا أنت أكرتان لك عليه هذا شيء دين دايس كتاج شيء دي اللي جود دي محكوا عقد جايبه ومتفق عليه بخاري مسلم باوري وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس كتب عليكم الحج وارددوا إلهي وحدكوا واجبي حجك فقام أقرع بن حابس نك الله يراهضه أي استاغي فقال وحوري أفي كل عام يا رسول الله رسول الله مسند والبعض فقال نبي حدرو قلتها لو وجبت هدان ها أوران لها ويدكوا واجب الهيد ولو وجبت لم تعملوا بها هدي أيدكوا واجب الهيد ما دي سميسين ولم تستطيعوا منادي كرتين الحج مر الحج هو مكليوي فمن زاد فهو تطوع قفك انت كالسياديين هو تطوع يصنوي لكن واجبك هو مركليوي رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والصحاح وحكى العلماء تلمامارو كهلان واجبكم الدقدق به وقفكم مرأة مركي كو واجب تبا وإنو تقع مسدب ودق كرايو وتراخي معناها way banaan tahay in dib loo dhigo waqtigu jaanisu helo mu tagi kara waxay markaa culimadu yiraahdeen dhahaba shaafi'i wa thawri wa awzaa'i wa muhammad bin hasan ila anna al-hajj wajib ala taraakhi culimadaas waxay leeyihiin waa waajib ala taraakhi macnaa dib qofku u dhigi kara iyadoo ay ku waajibtay dib u dhigi kara فيؤد في أي وقت في العمر وحنو جذن كرا وقت كستو عمر جيسا كمده ولا يأثم كندم باب مايو من وجب عليه بتأخيره متى أداه قبل الوفاة كندم باب ما يهدو قفكو تبقى لغاي أو سوق تحجكي انت آنو جيريونين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الحج إلى 16 نبي عليه الصلاة والسلام وحاو دبر دغاي النبي عليه الصلاة والسلام يدو سندكي لحال واجبيه إلا 10 أيو دبر دغاي وحنا لا جوغي النبي عليه الصلاة والسلام إلى 16 النبي عليه الصلاة والسلام وحا لا جوغي dumarkiisii iyo in fara badan oo saxaabada kamid ah iyadoo ay waajibtay sanadkii lixaad haday waajib ahaan lahaydna nabiga kaleey salaatu wasalaam hadii waajibkaasi degdeg ahaan lahaa dib u dhigeen muddada oo nabiga kaleey salaatu wasalaam iyadoo sanadkii lixaad la waajibiyay سكده معناه لو واجبيه حجك اي هذا سنتكي تمناد النبي عليه الصلاه والسلام اي سو حجي marka waxa leeyihiin mudada dheer dib u muu dhigay nabiga عليه الصلاه والسلام mudada dheer dib u muu dhigay haday tahay fawriye degdeg
oo ilaa 6 iyadoo waajibtay de ilaa 10 muu sugeyn waxa weeyaan u dedejin lahaa marka waxa ilaa qowlka iyagoo xajku waa al taraakhi hadduu qofka muslimka iyadoo ay ku waajibtay uu dib u dhigo wax dambiya oo ku dambaabaya ma jirto haddii uu guto laakiin shardi bay raaciyeen ma waa maxay ku dambaabi maayo dib u dhigida uu dib u dhigay haddii uu waajibka soo guto intaanu geeriyoonin bal ka waran isagoo dib u dhigay hadduu geeriyoodo uu dambaabaya weeye marka iyadoo xajka ku waajibay hadduu dib u dhigo oo waqtigu ku simi waayo oo uu geeriyoodo de waxa weeyaan marka uu dambaabaya weeye culimada kalena waxay yidhaahdeen oo ka mid yahay أبو حنيفة مالك أحمد بعد أصحاب الشافعي وأبو يوسف إلى أن الحج واجب على الفور حج وحكو واجب يا دقدق أوقفكم مرة الله مركا واجب كاسي مركو حجكو كو واجبه شروطها واجبين يوينو تلمامي دوناي وإنو دقدق وتقابيله وآنو سوقين لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحي من أراد الحج فليعج ورقفك حج دون يهدد تشيبون النبي عليه الصلاة والسلام فإنه قد يمر مريض قال قد وحلق يا أباه يمرض المريض إنه قفك بكي إنه بكوضه معناه قفك إنه بكوضه أي دعي كرته وتضل راحة إنه كلهم تدى بدي يوحي أفولي لها ما دعي كرته وتكون الحاجة إلى باهي تمادار دعي كرته أو هنتيدو بك بابعض مركا قفك حاج دونه يهدد تشيو مر على مركا كوا جبته رواه أحمد البيهقي والطحاوي وابن ماجه حديث كاسي waxa uu leeyahay qofku hadii xajku ku waajibo hadadajiyo maxaa yeelay waxa laga yaabaa inuu qofku bukoodo ayaa dhici karta in daabadiyo wixii uu raaciyay ka lumaan in baahiba ku dhacdo oo qofku caafimaadka iskuma hubo nolosha iskuma hubo maalka iskuma hubo jaaniska iskuma hubo amniga iskuma hubo waxa sameyn isku daataan baa dhici karta diyaarad bal waaya dhici karta inuu galaashi xajka bal waaya dhici karta iyo fiisadiiba waxa dhici karta qofku inuu bukoodo waxa dhici karta ilaa in uu maal haysto in maalkuba ka baabao ayaa dhici karta حديث كلام ابن عباس وريناي قال وحول التعجل النبي وحول عليه الصلاة والسلام تعجل الحج يعني الفريضة حجك ددتشية فرلك فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له نكين مؤجا متكين مؤجا وحكو سود الرين دونه رواه أحمد البيهقي وقال وحول ما يعرضه له من مرض أو حاجة إن حنون يباهي أي من دون طيين كلا تمر له ما هيو سادت هل الدجشو مركا لبدا قول بعلم له لكن واحد اسكو وافقسين قفكو هدي اسقو اي كو واجبتي او غدان وايو انو دنبابايو marka walaalahay qof kasta oo inaga mid ah oo xajku uu ku waajibay waxba yaanu dib u dhiganay mar haduu jaaniskiina hayo maalkiina hayo caafimaadna qabo waxba uu dib u dhiganay inuu dimoodkana naftana iskuma hubo maalkana iskuma hubo jaaniskan iyo maartay waqtigana iskuma hubee si degdega waajibka ilaahay uu guto imkana waxaan ku jirnaa waqtigii loo diyaar garoobaya dadka muslimiinta ah ee xajka ay u diyaar garoobayeen ilaahayna subhanahu wa ta'ala inoo fududeeyay sida xaqanayna waafajiyo billahi tawfiiq wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh